shir qarsoodiya oo ka dhici doona Addis Ababa oo u dhaxeeya Imaaraadka iyo Somaliland iyo dawladda Itoobiya. Shirka Imaaraadka ayaa dhexdhexaadinaya waxaana la doonayaa heshiiskii xaqdarrada ahay in mar labaad gadaal ay ugu soo celiso. Imaaraatis ayaana fangareynaysa lacag aad u tiro badan ayay ku bixinaysaa. Horay sidaas la eego kale ciidamada Itoobiya ay badda u tababaratay Imaaraatis ayaa qalabeeyo oo maalgeliyay si arrinka loo hirgeliyana Imaaraadka dhexda u xiran. Imaaraadkan tuugu dhalay oo dalkanaga hadba meel ka goosanaya dadkii Soomaaliyeedna kala iibinaya. Saciid Cabdullaahi Dani gooni u heshiinaya, Axmed Madoobe gooni u heshiinaya, Somaliland gooni u heshiinaya. Dawladda federaalka ay ku xanaaqsan tahay anagu horta dad Soomaaliyeed oo damiir la miyaanan ahayn. Marka Saciid Cabdullaahi Dani isha ka daawanayo Imaaraatis oo doonaya bad Soomaaliyeed in qolo kale xoog loo siiyo. Berri ka maalin oo Boosaaso ka soo dagayo airport ku leeyo ciidamada ku tababarayo soo doqonnimo maaha. Sidaas la eego kale marka Axmed Madoobe uu sii dhoofayo oo lacag ka soo qaadanayo oo u jeedo badii Soomaaliya Imaaraatis inuu qarash gelinayo in gees laga goosto soo doqonnimo kale maahan. Dawladda federaalka laftirkeeda oo isha ka daawanaysa Imaaraatis oo Boosaaso ka duqeynaya Suudaan, Imaaraatis oo Boosaaso ka duqeynaya Yaman. Dawladda federaalka markii isha ka daawanayso oo Axmed Madoobe isha ka daawanayo oo nimankan madaxda noo sheegto dhan isha ay ka daawanayaan oo mid kasta markii loo wac jeebka loo soo buuxinayo oo aan dal Soomaaliyeed iyo dad Soomaaliyeed midna aan dar uga jirin oo fiirinayo jeebkiisa. Horta doqonnimo mata Soomaaliyeed. Dawladdanada federaalka iyo Imaaraatis xiriirkooda aad buu u xun yahay. Inkastoo Xasan Sheekh Maxamuud ayaan dhawdo u tagay, haddana Imaaraatis maanta waxay doonayaan oo ay fangareynayaan oo qarash aad u tiro badan ay ku bixinayaan in heshiiskii badda Itoobiya iyo Somaliland gadaal loo soo celiyo oo ay Itoobiya heshiiskii Ankara ay ka baxdo. Anu marka waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed ee meelaha Imaaraatis ay degan yihiin degan Berbera ku nool ama Boosaaso ku nool ee Imaaraatis waxa ay sameynayaan daawanaya ee duqonnimada haddii madaxdanada ay duqomo noqdeen oo kuwa bahdilan oo inkaar Allah ku riday noqdeen oo aanan ogeyn Xasan Sheekh Maxamuud markii sida uu madaxweynaha u noqdo qol inta la gashtay bud iyo haraati sidii loogu waday gacanna laga jabshay indhahaana laga soo madoobeeyay hal wiigna uu isbitaal ku jiray dadka Soomaaliyeedna laga dhaadhacshay madaxweynihii corona ku dhacay oo karantiil buu ku jiray ama madaxweynihii gacan buu qalliin ka galay madaxweynaha sida loo galay oo inta kaliya xogteeda aanu hayno waxa kale oo lagu sameeyay aanan oqoon hadii la rabo muuqaal laga duubo iyadoo la farxumaynayo sababtoo ah Xasan Sheekh Maxamuud asagoo u jeeday Imaaraatis wuxuu sameeyay oo Suudaan oo ah dalka kaliya oo aynu walaalaha dhabtaanoo nacaawiyay laga duqeynayo Soomaaliya gudaheeda oo Yaman aynu ognahay markaaynu qaxnay inaynu ku qaxnay laga duqeynayo Soomaaliya gudaheeda oo aan u jeedno oo maamul goboleedyadii qaar kamid ah diyaarado dagaal siinaya oo Soomaalida qayb kamid ah xarun military ka furtay waxaas dadka shacabka ah oo daawanaya ee inta badan Boosaaso iyo Berbera ku nool walaalayaal hadda Soomaalnimo ku jiro oo dad Soomaaliyeed aad tihiin mudaharaada kaca xiriyaha ay leeyihiin ku mudaharaada waa hadii Soomaalnimo ku jirto madaxda aynu leenahay isku halaynayo kulligood way dulaysan yihiin wallahi sida aan ku sheegayo Xasan Sheekh Maxamuud waa sida loo soo galay Dani iyo Ciro iyo waxa la midka ah waxa lagu soo sameeyay ma naqaano Ciro sidaas la eego kale muddo 8 saacadood waa tii la raadinayo oo meel uu jaan iyo cirib dhiga la waayay asaga lama jirdilin laakiin wasiiru Beyle oo la socday ayaa sida Xasan Sheekh Maxamuud bag iyo xabad laga soo garaacay asagoo indhaha madmadoobaana la soo daayay nimankaas madaxdanada way duleystaan mid walba intay ballansadaan markuu madaxweyne noqdo oo qal mugdiga geystaan oo dhowr caraba u tagto oo muuqaal laga duuba iyadoo la farxumaynayo ayaa la yiraahdaa wax alla waxaanu doonaynaa hadii aadan sameeynin waynu ku fashilaynaa arrinkaas waa arrin xaqiiqa weey cadeynteedana Xasan Sheekh Maxamuud iyo wasiir Beyle ayadina shacabka waxa la rabaa marka dadka badka qaba oo aan muuqaal laga hayn oo maanta dalkooda inay badbaadiyaan laga doonaya waa adinka mudaharaada kaca diida yeeli meynade see adigu u yeeshaa